cisbitaalka wadaniga ah ee cudurka fistulaha ama isku furanka isagu lagala dagaalamo ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay oo lagu qabtay iyadoo 14 dumar oo xanuunkaasi laga daweeyo lagu sagootiyay xafladii halkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee cisbitaalkaasi iyo hay'adda waaha la yiraahdo oo iyadu markaasi dadkaasi kharashka ka bixisay oo kolka horeba soo diyaar gareysay 14 dumarka ah ee hadda cisbitaalkaasi qalitaanka loogu sameeyay isla markaas la daweeyay ayaa waxaa laga keenay gobolada koonfureed ee Soomaaliya gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose halkaasi ayayna u amba bixeen markaasi in ay ku laabtaan kadib markii ay xanuunkaasi oo muddo isagu hayay ka caafimaadeen halkaasi waxaa ka hadlay Dr. Ibrahim Qaws oo ah gudoomiyaha ama agaasimaha cisbitaalkaasi fistulaha waxaana kamid ah hadaladiisii markaad imanaya dad cusub inoo yimaadiina waanu ku soo dhaweynaa dadkii cusbaa ee isbaranay ee caafimaad markii tagayaana waxaan idhaahnaa nabadee baan isna dhahnaa ma aha nabadee inaan sidaa ku kala tagayno ee waxa weeyaan waa safiirro aan leenahay oo xaruntu leedahay Fistula Hospital waxaan imika nala jooga qoladani oo ah waaha waa qolooyinka dumarka caawiya marka waxay aad nooga caawiyeen runtii marka la eego tigidhada halka ku timaadeen iyo kharashyada raashinka qabteen iyo daawada iyo ka ayaa naga caawiya waxaan u malaynayaa inay noo sii wari doonaan sidaas haddii la helo markii hore ma aanu heli jirin qof ka soo bixiya kharashka oo haddii jidka soo maraana bilay soo bixi jireen dumarka imanaya waayo sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Camuud Dr. Saciid Axmed Walhad iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Camuud Professor Axmed Cabdillaahi Boqorre waa maalin weyn oo khayr leh waa maalin farxad badan leh waa maalin aan si nabadgelyeynayno bukaanadii ka yimid gobolada fogfog waxaan rajaynaynaa inay ilaahay caafimaadka sidaa ugu sii wado ayna dhibaatadaana mar dambena la kulmin ay cisbitaalkana u noqdaan safiiro oo ciddii dhibaatada qabta ayna ka waaniyaan ayna ku soo taliyaan ayna kuna soo dhiirigeliyaan in iyagana si wax loogu qabto inay u soo dagaan marka hore wax ilaahay loogu mahadnaqo oo ilaahay loogu mahadiyo caafimaadka weydiisiyay runtii ma dhibaatada ay ugu dhacday qaarkiin inta badan ilaa 20 sano in ka badan ba ay haysay waan garan karnaa ma dhibaatadaas intay leedahay iyo xulayska ay leedahay oo ilaahay ba mahadale marka ku xigana mahadda waxa leh dhakhtarkan halkan Fistula Hospital ee Boorama iyo dhakhtarada ma Dr. Qaws iyo Dr. Walhad ayaa runtii ma mahad aad iyo aad gaar ah ma celinayna waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno kamid ah hay'adda waaha oo iyadu markaasi kharashkii ay dadkaasi ku soo socdaaleen ama ay ku sii guriyo noqon doonaan ayagu ka bixiyay sidoo kale dadkii iyaguna halkaasi xanuunka lagaga daweeyay qaar kamid ah ayaa iyaguna hadaladoodii iyo ra'yigooda ka dhiibtay waxaana ay yiraahdeen maray arrimahaasi ka hadlayeen badan baano iyo ilinteedan tirtire mahadalaahe waha way wanaagsan tahay makeena walaal makeena wiilan hada dhalay waxa soo qaaday weynaysi heelon wareersan wax badan baan heelon wareersan wallahi mas'uulay waxaan markeede والله ما سرين واحد بركين واحد الله قلبي وهاوي وناسنتان tani maaha markii ugu horeysay cisbitaalkani uu daweeyo ama uu hawl samafalo u fidiyo dad dhibaataysan oo noocaasi oo kala ah waxa jirta marar fara badan in dad sidaasi oo kala markaasi lagu daweeyo oo ay isaga yimaadeen guud ahaanba gobolka Geeska Afrika ama inta ay Soomaalidu degto Xasan Ciise shabakada wararka ee Salal News Boorama.